imisaan arkaa dhalinyaro xooggan markii xooggii hooyadood ay qaateen markay qaateen anfacaadii iyo ay qaateen hooyadood wax walba ay ka qaateen oo la soo koriyey iskiinta raaxadeedii oo dhan ay u hurtay ay ku daashay ayaa markay xoogaysteen oo la rabay inay hooyadii xambaaraan hooyadii u qabeeyaan hooyadii madaxa u salaaxaan hooyadii u riixriixaan u adeegaan khaadim u noqdaan ayay leeyihiin uf ay gacmaha ku sayraayaan ayay hooyooyinkood guulguulayaan hadal hooyadii ma dhihi karto way baqaysaa gabadheeday ka baqaysaa wiilkeeday ka baqaysaa hooyada haddii hadal ay dhahdo inuu ilkaha ka daadiya ka baqaysaa imisaanu aragnay haddana wuu tukanayaa ilaahay buu allahu akbar u leeyahay waa xaqii koowaad xaqii labaadna waa kan way baqaysaa hooyadii wiilkeeda lama hadli karto xumaan kama celin karto wanaagga uguma yeeri kardho falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha gulgulin hooyada waa laba shay oo laynaga fogeeyey waqul lahumaa qawlan kariimaa qowl wanaagsan dheh hooyada way mudan tahay way leedahay xaqa wallaahi way leedahay hooyada hadal wanaagsan dheh dadkii kale ee aanan muslimiinta un islaamnimadun idin dhexaysay bal insaannimadun idin dhexaysaa waxaa la leeyahay waquluu linnaasi xusnaa dadka kale waa gaaladii iyo muslimkii hadal wanaagsan ku dhaha maxaa waay kelimada wanaagsan waa sadaqa miisaanka maalinka qiyaamay kuu fuulaysaa laakiin hooyadii oo kaaga dhow xaqa labaad ah ayaa lagu leeyahay waqul lahumaa qawlan kariimaa hadal wanaagsan oo qalbigeeda farxad geliya ku dhan in badan bay hooyada qalbigeeda murugay oo ay murugootay oo ay walwashay oo ay ooysay oo ay ceelkaambisay siday rag kaaga dhigi lahayd siday kuu korin lahayd khayrka aad uga fiicnaan lahayd siday wax kuu bari lahayd siday tarbiyadaada iyo akhlaaqdaada u wanaajin lahayd hooyo wax loo dhigo wallaahi inaanay lahayn waxa la ooyayo hadalka aan sheegayo ma aha laakiin waxaan sawiranayaa oo aan arkayaa in hor fadhiya hooyooyin badan oo da 70 80 xanuunsan oo jooga qaxootiyadii oo jooga meel runtii nabad aanay ka jirin madfuucu dhacayo meel aan hooyadii aanay heli karin wax u adeega aanay heli karin wax dabka xataa u shida aanay heli karin wax biyo u keena bal hooyada aanay heli karin biyo nadiif oo ay cabto dhoobada ay cabbaysaa meelay harsata aanay heli karin cirkaasaa u saqaf ah oo guri ah dhulkaasaa u sariir ah dhul ayay jiiftaa waxaan arkaa hooyo miskiin ah oo gurguuranaysa in ay dabshidato in ay soo qaadato weelyar in ay soo qaadato jikada ay gasho aaw ciyaalkeedii 5 ama 10 ayay dhashay aaway xaggay ka baxeen orobay joogaan waa raaxaysanayaan gabdhii u adeegayaan reero kale u shaqaynayaan miskiintii dhashayna waa taas halkaasay fadhida wabilwaalidayni ixsaana gaari qurux badan oo 1 milyan la gadaayo ku socdaa hooyadiina guriga uu dhisi laayahay dhar buu ku xiri laayahay way arxamanta hooyadii way qaawan tahay markaad fiirisid sawirkeeda waxaad moodaa waagii dhagxaanta inay joogtaad moodaa waagii cawska iyo qashinka la saaran jiray cawrada lagu asturi jiray inay joogtaad moodaa hooyadii iyadiina gabadhu waxay xiran tahay dhar xariir ah dahabkiiba meelay dhigta la'dahay ilmaheeda waa kuwaana oo siday u burbuuran yihiin u qurux badan yihiin waad yaabaysaa hooyadeedna waa taa miskiinta halkaasay ku hoynaysaa آخر عذاب بعدين به والله عذاب بعدين به عندنا ميل لقينا لا يحتى لا جوينك بوح والله واحد به والدكي أنا والدكي هل كان أنا كارين ولا شيء أنا كذب بينا هل كان وكاجي سيئة
والله زقوم بانو دمبي زقوم كي أكشي كينا يا إنو دمبي إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وحا إنو دمبي رسولك نقول صلى الله عليه وسلم هدي نبيعك من الزقوم كأدو كل وسور هذي لها ونبيع هدي الوسور هذي لها عالم كأردن دك كنا نرشود وحلا بالخيط وقبل لها وبابي لها ويدم لها يدي الكود وهل نبيع هدي أدو كل وسور هذي لها كورن بولي هاي كاللوغة دقاء عناديسة قادة يقرع ذي عشرة نك عناية بل كورن بولي هاي بانك يسقى والدك أين قلنا فإن